mana khiyaarta soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamij kale yakinan maanta insha allahu tacaala sida aad alaaba nooga barateen waxaan insha allahu tacaala ku eegi doonaa arrimaha dalkan maraykanka iyo waxa soomaalida ka quseeya ee dadka soomaaliyeed haddii aan ku bilaabo maanta 2 saac ka hor state departmentiga dalkan maraykanka ayaa waxa ay soo saareen warqadaas oo ay ku sheegeen in gebi ahaanba macaawinadii Soomaaliya ay siini jireen dalkan Mareykanka la joojinayo arrinkan ayaa waxa uu yimi kadib markii dawladda Mareykanka ay ku eedeysay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in baqaaro waaweyn oo ay iska lahaayeen WFP hay'adda cuntada adduunka la burburiyay oo dawladda federaalka ah Soomaaliya ay burburisay warehouseyadaas cunadii taalay oo hay'adaas ay iska lahayd oo gaaraysa 76 metric ton oo cunto ah oo dadka Soomaalida ah masaakiinta loogu talagalay iyadana halkaas la qaatay marka maamulka Trump ayaa waxa uu sheegay in policy-gooda ama siyaasadda ay ku shaqeeyaan ay ka soo horjeedo waxyaabaha la xadaayo in la weecsado ama la leexsado dadka masaakiinta ah wixii loogu talagalay diversion of saving assistance marka dadka masaakiinta ah cunadii loogu talagalay in la leexsado in baqaarada la dhaco ayay ku eedeeyeen dawladda federaalka ah sanadkii ugu dambeeyay Biden uu joogay waxaa la sheegay in $2 bilyan ay ku baxday WFP Mareykanka uu ugu deeqay lacagtaas of course Soomaalida ma wada aadin dadka abaaraha ay hayaan dadka qaxootiyada iyo dadka colaadaha ay hayaan ku jira qaxootiyada iyo waxyaabahaas oo dhibaatada ay la soo daristay ayaa la siinayay oo lacagta directly waxay siinayeen WFP laakiin haddeer waxay sheegeen in Soomaaliya 1 penny senti dambe aysan kaga bixi doonin ilaa bay sheegeen arrinkan dawladda Soomaaliya ay wax ka qaban doonto mar la weydiiyay state departmentiga ama wasaaradda arrimaha dibadda waan iska yiraahday inay ku noqon doonaan ama dib ay u sameyn doonaan lacagaha ay ka goosteen Soomaaliya in dib loo siin doono maadaama abaaro fara badan ay jiraan dhibaatooyin fara badanna ay dalkii haystaan waxa ay sheegeen haddii aan ku noqonayno ama aan lacag siinayno Soomaaliya waa in ay dawladda accountability ay qaadataa oo mas'uuliyaddeeda ay qaadataa dawladda federaalka Soomaaliya bay la hadlayaan waxa ay sheegeen in tallaabooyinka hadda ay qaadeen oo ah in meelihii ay ku kaydsanaysa WFP intii la burburiyo warehouseyadii waaweynaa haddana wixii yaalay la qaatay arrinkaas isaga ah waa in tallaabooyin lagu saxaayo ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay qaadaa so markii hore waxay ahayd ciidamada danab oo Mareykanka uu tababaray cunadii la siinayay baa la dhacay bay ahayd xilligii hore oo fadeexadii hore oo ay Mareykanka intii Trump uu imaaday lagu soo eedeeyay dawladda Soomaaliya taas waa hore ahayd haddana waxa u soo xigtay in arrinkan uu dhacay oo ay sheegayaan waa alleged sida Mareykanka uu sheegayo waaye in arrinkan uu dhacay marka arrinkaas isaga ah halkaas iyo maaragtay ayaan qodobkaas uga tegaynaa waliba waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo USAID hay'adii lacagta bixin jirtay dawladda Mareykanka uu lacagta faraha badan ku bixin jiray waa tii uu kansalay markuu Trump uu imaaday marka lacagta hadda Soomaaliya ay siini jireen inta ay gaarayso oo mucaawinada ah lamaba oga baa la yiri maadaama Trump uu joojiyay USAID programkii oo dhan marka lacagta uu hadda goosanayo ama mucaawinada uu Soomaaliya ka goosanayo inta ay noqon doonto lama oga laakiin lacagtan badankeed waxay ka iman doontaa WFP lacag laga goostay taas halka haddaan kaga gudubno qodobka labaad oo rabo inaan idinka dabageeyo waxa waaye waxaa bilaabatay in Soomaalida meel kastay joogto fuustooyin walwaalan lagu soo riixo Abuukar Baale oo ah Abuukar Cusmaan Baale UN-ta isaga ninka u fadhiya wakiilka u fadhiya Soomaaliya ah ayay waxa ay qolyihii is urursaday ee jamhuuriga ahaa iyo Fox News iyo qolyo kale oo iyagu si fiican u ula dooday ayaantii dhoweyto waxa ay ku soo riixeen fuusto ay sheegeen in hay'ad home health care oo ku taala Cincinnati Ohio uu qayb uu ka lahaa ama maaragtay hay'ado badan bay ahaayeen oo isku xirxiran oo home care ah oo isku magac leh oo isku meel ku yaalay oo maaragtay waxaan umaleynaa in ofisyo ka kala furteen meelaha
fuustaas ayuu waxay ku soo riixeen odayga in uu hay-ad lagu soo eedeeyey in ay Medicaid-ka kaarka caafimaadka ee dalkan Mareykanka oo lagu qaato home health care-ka lacaga laga xaday oo lagu soo eedeeyay fraud inay gashay oo khiyaano in uu wax ku lahaa ama magac uu ku lahaa ama lug uu ku lahaa ninka odayga ah inkasta oo wax cadayna hadeer aysan keenin haddana waxa ay soo ururinayaan warar isdaba socda oo ka kala socda maxaan ku idhaahdaa ay ka soo ururinayaan human and health and human services bay ka soo qaadayaan midda kale waxa warka ay ka soo ururinayaan oo waraysiya ay ka qaadayaan dadkii mas'uulka ka ahaa markii odayga hay-addiisa home care-ka ah dacwadda lagu soo oogay ama qaladka lagu helay inay lacag Medicaid ay dhunsadeen waxa ay wareysanayaan Ohio Department of Jobs and Family Services marka ninka odayga ahna waxay isku dayayaan inay ku soo riixaan fuusto inkastoo wax cadayna hadda aysan keenin oo sax ah laakiin waxa ay raadinayaan rasiidyadii koolal bay samaynayaan waxay rabaan in ay maaragtay eedeyn ay u soo jeediyaan ninkaas odayga ah waxaa kale oo ay raadinayaan arrinkan wuxuu imaaday kadib markii maalinkii dhaweyto shirki degdegta ahaa oo UN-ta loo qabtay Soomaaliya arrinkeeda uu aad si fiican ugu dooday midnimada dadka Soomaaliyeed midnimada iyo wadajirka markuu ka dooday waxa si fiican ula dooday ninkii odayga ahaa ee ka soo wakiilka u ahaa waddanka Israel oo u fadhiyay UN-ta ninkaas dood adag ayuu la galay doodaas kadibna waxaa ka dhalatay in ay yiraahdaan balorta ninkan sida tan u adag muxuu ahaayo shaqo waa in laga qabtaa marka alaabihii waxaa ku bilaabatay isaga naftiisa fuusta ku riixidii ayaa ku bilaabatay qodobka saddexaad insha Allah tacaala oo rabo inaan ku daro waxa waaye waxaa la soo warinayaa 2,000 oo officer oo ka socota hay-adaha dalkan federaalka ama DEA ha ahaadaan ama ha ahaadaan ICE ama ha ahaadaan FBI whatever ay yihiinba 2,000 oo officer oo federal agents ah in loo diray magaalada Minneapolis Minnesota nimankan ayaa waxaa la sheegayaa in patrol extra ay samaynayaan oo ay dadka ku istaajinayaan baarkinada guryaha hortooda businessyada hortooda dadka laga adeegto oo xalaalada iyo waxaas iyaga oo gawaari fara badan wata 2,000 oo officer maanta waxaa dhacday already shilkii ugu horreeyay ayaa ka dhacay kadib markii gabar gaari wadatay Honda Pilot ah oo socotay officer kamid ah officeradaas uu u qaatay in ay rabto inuu gaarigaas uu mariyo sida uu u sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka inkastoo oo siyaasiyiin fara badan oo ka soo jeeda gobolka Minnesota ay arrinkaas diideen oo madaxweynaha ay yiraahdeen madaxweyne arrinkaas sida aad u sheegayso ma aha officerkii dhaawac ayaa soo gaaray oo ma aqaano markii baraf baa jiray meesha maaragtay uu gaariga ka booday inta uusan soo gaarin ma wax soo gaarin ma aqaano officerka isbitaalka ayaa la dhigay gabadhina dhowr xaba ayay ku dhufteen oo meesha ayay ku meeyday marka accidentigii ugu horreeyay halkaas wuu ka dhacay laakiin waxa loo soo urursaday 2,000 oo officer oo ka socda federal governmentiga dalkan Mareykanka wax kale ma aha sida hadda muuqata waxa ay officeradan isugu keeneen sidii ay dad fara badan u qaban lahaayeen oo haba u badnaato Soomaalida oo baryaha kan ilgooniya ay ku hayaan waxa kale oo hadda hawada ku soo jira in la joojin doono TPS programkii Soomaalida waa hore waa laga joojiyay January hadii la gaaro lama cusboonaysiinayo waa tii la lahaa laakiin waxay rabaan inay 60 bari u qabtaan qof kasta oo Soomaaliya in uu isku sameeyo self deportation inuu isaga istarxiilo haddii kale la soo qaban doono la tarxiili doono bay yiraahdeen marka officeradan waxa loo soo urursanayo oo Minnesota iyo Minneapolis St. Paul iyo Minneapolis ba saaid loogu arkaya nimankan iyaga oo gawaarida istaajinayo dadka ku daba jira oo ilgooniya u leh dad especially gaar ah marka waxa loo soo urursaday officeradan waxa waaye in loo tuso in operation culus uu ka socdo magaalada Minneapolis oo ujeedka laga leeyahayna aad garan kartaan waxa kale oo hadeer gobolka Minnesota maalin dhaweyto annaga video ka sameynay governorkiisa uu iska casilay ama uu ka tanaasulay inuu mar saddexaad u tartamo markii hore rajo ka qabay inuu tartamo
governor ahaan laakiin cadaadis fara badan oo oga imaaday xagga xisbiga jamhuuriga oo republicanka Fox News MAGA qolyahan iswata oo is urursaday Make America Great Again groupkan is urursaday ayaa wuxuu ku qasbay odagii in cadaadis fara badan intay saaraan pressure ay saaraan ay ku eedeeyaan waliba in $9 bilyan oo la dhacay xilligii la joogay hadeer uusan meelna ku sheegi karin sida uu u handle gareeyay ama kayska uu u qabtayna si fiican in aysan ahayn ayaa maartay lagu eedeeyay marka isaga uu iska qirtay oo wuxuu dhahay nima yahow wixii dhaafo way dhaafeen laakiin hadda ka dambayso ma rabo inaan ku qarash gareeyo waqtigayga inaan campaign galo arrinkana aan difaaco marka every minute aan ku difaaci lahaa waxa iga fiicnaatay buu yiri in aan shaqadeeda aan ku haysto marka Minneapolis waa la isugu imaaday St Paul sidoo kale si lamid ayaa la isugu imaaday dadkaas badana 2,000 oo officer loo keensadayna ujeedka waxa waaye waa iska garan kartaan in stateka ama gobolka laga dhigo gobol republican ah loo bedelo oo gobernatoraha ay republicanka sanadkan qaataan waxa kale oo loo socdo waxa waaye in blue state inta laga soo bedelo laga dhigo red state sidaas la mid ah waxa ay u baahan yihiin sida ay sheegeen inay helaan attorney generalka waxaana lagu eedeeyaa markasto fraudkan hadda ay sheegayaan oo khiyaanadan lacagtan la xaday iyo waxaan hadda ay fuustada Soomaalida ay aadka ugu riixayaan oo ay bumbuuninayaan wali lacagta faraha badan ku bixinayaan in fraudkan uu ahaa markii ugu horeysay oo la qabto 2020 marka 6 sano kadib baa waxa lagu eedeeyaa in waxa hadda loo bumbuuninayo ujeedo kale ma aha ujeedka laga leeyahay oo dhan waxa waaye in stateka laga dhigo state red ah governorka ay iyaga qaataan attorney generalka ay iyaga qaataan bay u socdaan iyo sidaas la mid ah orda mayorka ma heli karaan labada gobolba waxaan ka rabaa labada magaalaba St Paul iyo Minnesota Minneapolis already way doorteen mayaradoodii marka 2,000 oo officer ay soo direen waxaa la rabaa insha Allah taala in dadka la argagax geliyo weeraro lagu soo qaado oo arrinkan ujeedadaas ayaa laga leeyahay in maartay loo tuso madaxweynaha in shaqo fiican ay ka socoto meeshaas ayaa ujeedkeeda ah marka arrinkan waa arki doonaa waxa ka soo kordha TPS programka Soomaalida haduu ka dhaco kulli ma cusboonaysiinayaan already madaxweynaha TPS programka wuu sheegay oo wuxuu dhahay TPS programka dadka haysta ama temporary protected statuska ku jooga ee Minnesota kaliya asaga marka hore carabaabay mar hore waa kala noqday dadkaas statekaas degan oo TPS-ka ku joogay marka laakiin haduu ka dhaco Soomaalida sanadkan January ma loo kordhinayo sida ay cadeynayaan sheekada kale oo soo socotana waa aniga idin sheegay in la rabo TPS kan Soomaalida hadii uu ka dhaco in 60 bari la siiyo sidii Etoobiyaanka 60 bari loogu qabtay inay dalka kaga baxaan self deportation isku sameeyay bay leeyihiin idinka istarxiila hadda istarxiili weysan anaga idin qabanayno idin tarxiilayno marka waa iska booto kale iyo cagajugleyn iyo ismoojin Soomaalida hadda la rabo in lagu soo caanbaxo si codka loo qalqalgaliyo oo stateka looga dhigo state republican ah marka waa mahadsantihiin dhammaan aqyaarta igala soo qayb gashay live-kan intii live kale ku kulmi doona haduu Ilaahay idmo wassalamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh